weligii qofna umuusan xukumin ciyaarta kubadda cagta si la mid ah sida uu sameeyey isagu. xitaa kuwa ugu waaweyn ee uu la tartamay waxay qirayaan inuu yahay kan ugu fiican kubadda cagta. maalintii aaryo lagu shubay, wiilkii ka yimid Rosario waxa uu dhameeyey kubadda cagta. ma jira wax u hadhay isaga. waxa uu ku guulaystay wax walba oo yaalo dunida kubadda cagta. hadafkiisuna keliya waa inuu dhiirigeliyo jiilka soo socda. runtu waxay tahay saaxiib, weligaan mar dambe ma arki doono Lionel Messi oo kale. Lionel Messi wuxuu dhashay 24 January sanadii 1987 wuxuuna ku dhashay magaalada Rosario ee bartamaha dalka Argentina. isla markiiba markuu kubadda taabtay waxaa caddaatay in wiilkan uu yahay mid gaara. xirfadiisuna waxay ka bilaabmatay kooxda Grand Ole FC isagoo 4 jira, taasoo uga mahad celinayay ayeediis. iyadoo waxay u dagaalantay sidii uu kooxda ugu biiri lahaa, laakiin kartidiisa ayaa sababtay inuu noqdo xidig xaafadda oo dhan ay jecel yihiin. Messi markii uu gaadhay da'da 11 jirka, kooxda Newell's Old Boys ayaa xiiseynaysay, waxayna daawadeen isagoo ciyaaraya, waxayna hubeen inuu noqon doono xidiga xigay ee weyn ee ka soo bixi doona Argentina. kooxda Newell's ayuu ku noqday mid cajiiba, tababarayaashuna aad bay ula dhaceen, waxayna rumaysnaayeen inuu noqon doono xidig weyn. balse hal dhibaato ayaa jirtay. Messi ma ahayn mid u koraya sida saaxiibadiisa kale ay u korayeen. kadib markii dhakhaatiirta iyo waalidkiisa arrintan ay baadheenna waxay ogaadeen inuu qabo cudurka hormoonka koritaanka joojiya oo joojinaya koritaankiisa isla markaana saameeyay noloshiisa. kooxdiisii Newell's Old Boys ma aysan awoodin inay bixiyaan kharashka daaweynta Messi, waxayna u muuqatay xaalad aad u adag oo cakiran ilaa Barcelona ay soo faragelisay arrintan. kooxda Barcelona waxay muddo daawanayeen Messi, waxayna ogaayeen inuu mudan yahay in khatar loo galo si ay u badbaadiyaan noloshiisa. waxay ku heshiiyeen inay iyagu kafaalo qaadaan caafimaadkiisa, isaguna uu u safray Spain si uu ugu biiro akaademiyada La Masia. markii uu halkaas yimidna waxa markiiba caddaatay inuu doonayo inuusan keliya ciyaaraha ka qayb gelin, balse uu dalka oo dhan ku qabsado kubadda cagta. gudaha akaademiyada La Masia horumarka Messi waxa uu ahaa mid degdega. wuxuu soo jeeday durba dareenada tababarayaasha da' kastoo uu joogaba. sanadkii 2003 Messi horeba waxa uu ugu saftay oo uu u ciyaaray kooxda koobaad. sanadihii hore marna uu ciyaarayay marna waa la nasinayay, balse ugu dambeyntii waxay tababarayaashu ogaadeen inaysan kooxdu la'aantiis dhisnaan karin. Messi xitaa wuxuu ku dhawaaday inuu sababo dagaal u dhexeeya Spain iyo Argentina si loo arko dalka uu ciyaari doono. ugu dambeyntii waxa uu doortay Argentina. wuxuu ku guuleystay koobka adduunka ee da'yarada 20 jirada sanadii 2005 isagoo loo doortay ciyaaryahanka ugu fiicnaa tartanka. waxa uu dhaliyay 6 gool 7 kulan oo u saftay oo ay ku jiraan 2 gool ee finalka uu ka dhaliyay ee u sahashay Argentina inay koobkaas qaado. markuu soo laabtayna uu ka sii fiicnaaday sidii hore. sanadkii 2006 wuxuu noqday xidiga joogtada ee kooxda koobaad, balse dhaawac ayaa ka hor istaagay inuu ka mid noqdo kooxdii Barcelona ee ku guuleysatay Champions League finalkii Paris ka dhacayay. si kastaba ha ahaatee, Barcelona waxay diyaar u ahayd inay sugaan Messi, taasina waxay ahayd wax la fahmi karo, gaar ahaan markuu garoonka soo galo isagoo soo bandhigaya goolal iyo ciyaar inabaan caadi ahayn, kuwaasoo qof walba tusayay heerka uu gaadhsiisan yahay Messi. waxa uu ahaa mucjiso aysan kooxda Barcelona hore u arkin, halka Argentina dhexdeedana waxay ahayd sidii in la arkayo Diego Maradona oo da'yaroo kale ah. wuxuu sii horumariyay xirfadiisa, wuxuuna muujiyey inuusan hadal keliya ahayn. kulamada waaweyn wuxuu noqday mid go'aamiya, wuxuuna dhaliyay hat-trickiisii ugu horreeyay ee El Clasico, kaasoo ay la ciyaarayeen Real Madrid gudaha garoonka Camp Nou. shaki ma jirin, wiilkan waxa uu ahaa mid hiboola ah. goolkiisii ugu horreeyay ee u dhaliyay Barcelona waxaa ka caawiyay xidigii weynaa Ronaldinho, ninkii ugu weynaa taariikhda kooxdaas. Ronaldinho aad buu u aaminsanaa kartidiisa, wuxuuna arkay waxaysan dunida kale weli arag. wuxuu u sheegay Kobe Bryant isagoo ku leh, haddii aad u malaynayso inaan anigu ugu fiicanahay adduunka, bal eeg wiilkan halkan jooga, maalin uun wuxuu noqon doonaa kan ugu fiican adduunka.
Ronaldinho ma uusan khaldanayn wuxuu arkayay mustaqbalka. xagaagii 2008 Barcelona waxay qaadatay go'aan weyn waxayna go'aansatay in kooxda cusub lagu dhisay Messi. kooxdu waxay soo mareen xilli aysan wax koobaba la hoyanin niyad jab iyo tamar yari. Barcelona waxay magacowday Pep Guardiola oo ahaa tababaraha kooxda da'yarada si uu u noqdo tababaraha kooxda koobaad. Pep Guardiola hore ayuu u garanayay hibada Messi wuxuuna go'aansaday inuu kooxdiisa cusub ku dhisay isaga xitaa haddii ay ka dhigan tahay inuu Ronaldinho u diro albaabka oo uu fasaxo. Ronaldinho waa uu ka tegay Barcelona. Messi-na waxa uu qaatay nambarka 10aad ee caanka ahaa. xilli ciyaareedka xigay Messi waa la joojin waayay. goolkiisii finalkii Champions League ee Barcelona wuxuu noqday taajka ka dhigay boqorka cusub. xilli ciyaareedkaas waxa uu ciyaaray 51 kulan wuxuuna dhaliyay 38 gool iyo 19 caawin. waqtigaas ayuuna ku guuleystay Ballon d'Orkiisii ugu horeeyay 2010 wuxuu ku daray Ballon d'Orkiisii labaad keedkiisa wuxuuna ka qayb galay koobkii adduunka ee lagu qabanayay Koonfur Afrika. laakiin natiijada Argentina waxay ahayd niyad jab markii la gaadhay dhammaadka koobka adduunka. xulkii Argentina waxa 4-0 ku dhuftay xulka Germany. Messi-na gool ma dhalin laakiin markii uu ku soo laabtay Barcelona qaabkiisii fiicnaa wuu sii socday. sanadii 2011 wuxuu ciyaaray 55 kulan 53 gool buu dhaliyay 27 caawinna uu sameeyay dhammaan tartamada. nambaradani waxay noqdeen kuwa aan la rumaysan karin wuxuuna ku guuleystay Ballon d'Orkiisii saddexaad. xilli ciyaareedkii 2011-12 Messi waxa uu burburiyay rikoodh kasta uu heli karayay oo markaas jiray. 24 jirkiisina waxaa lagu tilmaamay kan ugu weyn kubadda cagta. waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee La Liga ka dhaliya 50 gool hal xilli ciyaareed. wuxuuna lahaa 22 kulan oo uu dhaliyay min 2 gool amba ka badan, 3 hat-trick, 2 kulan oo uu dhaliyay min 4 gool iyo 1 kulan oo uu dhaliyay 5 gool isagoo ka dhaliyay Bayer Leverkusen Champions League gudihiisa. guud ahaan waxa uu dhaliyay 73 gool 60 kulan oo uu saftay wuxuuna bixiyay 29 caawin. waxaan odhan karnaa wuxuu mudnaa wax ka weyn Ballon d'Orka afraad gaar ahaan dhammaadkii 2012 waxa uu jabiyay rikoodhkii Gerard Muller oo goolasha sanadka kalendarka ahaa 91 gool. waxay ahayd wax aan hore loo arag. Messi-na waxa uu noqday mid laga dambeeya kubadda cagta dhexdeeda. sanadii 2014 wuxuu mar kale la safray Argentina koobka adduunka. markan waxa uu keenay xulkiisa finalka koobka adduunka isagoo dhaliyay 4 gool balse goolkii Mario Götze ee daqiiqadihii ugu dambeeyay ee waqtiga dheeraadka ahaa ayaa ka dhigay inuu seegariyadiisii weyneed ee koobka adduunka. wuxuu ku laabtay Barcelona halkaasoo isaga Suarez iyo Neymar ay sameeyeen weerarkii loo yaqaanay MSN weerarkii ugu halista badnaa taariikhda kubadda cagta. xilli ciyaareedkoodii ugu horeeyay waxay ku guuleysteen 3 koob. isku darka Messi, Suarez iyo Neymarna waxay dhaliyeen 120 gool hal xilli ciyaareed. Messi-na waxa uu dhaliyay 58 gool 31 caawin 57 kulan gudahood oo uu saftay. dhammaadkii sanadkaas waxa uu helay mar kale Ballon d'Orkiisii shanaad wuxuuna noqday ninkii ugu horeeyay ee gaadhay taariikhda 5 Ballon d'Or. 2016 wuxuu mar kale u ciyaaray Argentina finalkii Copa America ee ka dhacay dalka Chile balse nasiib darro waa uu ku guuldaraystay. wuxuu ku dhawaaqay inuu ka fadhiisanayo xulka balse dib ayuu ugu soo laabtay xulka. laakiin Barcelona waxay bilowday markan inay hoos u dhacdo. 2017 Neymar waxa uu ka tegay Barca. weerarkii loo yaqaanay MSN-na waa ay burbureen oo waxa kaliya ka soo hadhay Messi iyo Suarez halka Cristiano Ronaldo uu la sinaaday Messi isagoo buuxiyay 5 Ballon d'Or. sanadii 2018 Messi mar kale waxa uu hogaamiyay Argentina koobka adduunka balse waxa 4-3 kaga badiyay xulka France. wareegii 16 Lionel Messi wuxuu sii waday dagaalka. wuxuu markan muujiyay heer cajiib ah. goolkulaadka xorta la yaabka lahaa iyo qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ayaa ku dhawaaday inay siiyaan Barcelona 3 liig kale balse waa la garaacay oo Liverpool ayaa ku dhafatay 4-0. sidoo kale waxa laga badiyay finalkii Copa del Rey. si kastaba ha ahaatee wuxuu helay Ballon d'Orkiisii lixaad laakiin waxa la arkayay in Messi uu kaligiis waday Barca. 2020 dunida oo dhan waxay aragtay burburkii weynaa iyo guuldaradii xanuunka badnayd ee 8
2-2 ay ku dhifatay Bayern Munich Barca. Messi-na waxa uu rabay inuu tago, balse kooxda Barca ayaa ku qancisay inuu sii joogo. Sabab wanaagsan ayaa jirtay. Sanadii 2021 Messi ugu dambeyntii wuxuu la qaaday Argentina koob weyn, wuxuu noqday kabtanka ku hogaamiyay dalkiisa Copa America-hoodii ugu horeeyay 28 sano kadib. balse markii uu dib ugu soo noqday Barca si uu u saxeexay qandaraaskiisa cusba ma aysan suuroobin sabab dhaqaale awgood. sidaas ayuuna Lionel Messi uga tagay kooxdii uu adduunka ugu jeclaa. wuxuu ka tagay isagoo ah gooldhaliyaha ugu weyn taariikhda Barcelona iyo La Liga 474 gool iyo 216 caawin, 520 kulan oo La Liga ah iyo 129 gool oo Champions League iyo 672 gool. guud ahaan kooxda number waliya oo aysan cidna samayn karin. kadibna waxa uu wareegay PSG. inkastoo waqtigiisa halkaasi uusan u dhicin sidii uu rabay, haddana wuxuu ku guuleystay koobkii ugu weynaa noloshiisa ee uu sugayay muddada badan, koobka adduunka. sanadii 2022 wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu fiicnaa tartanka, wuxuuna qaatay abaalmarinta Golden Ball. Messi wuxuu ku daray 2 Ballon d'Or oo kale ahaa sanadii 2021 iyo sanadii 2023. midka ugu dambeeyayna wuxuu ahaa mid khaas ah kadib markii uu ka tagay PSG. dad badan waxay filayeen inuu ku laaban doono kooxdiisa hore Barcelona, balse waxa uu doortay inuu bilaabo cutub cusub oo noloshiisa oo dhankaas Mareykanka ahayd. markii uu ku biiray Inter Miami, dad badan waxay moodayeen inuu halkaas u tagay fasax yar oo gaaban, laakiin dhab ahaantii wuxuu halkaas u tagay inuu noqdo qayb ka mid ah mashruuca cusub. ciyaartiisii ugu horeysay ee uu la ciyaaray kooxda loo yaqaan Cruz Azul isagoo bedel ku soo galay Messi, wuxuu daqiiqadihii ugu dambeeyay dhaliyay goolkii guusha si mucjiso ah. wuxuu dhamaystay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Inter Miami isagoo la 14 gool iyo 11 caawin, 15 kulan gudahood. inkastoo uu da'yahay wali waxa uu ahaa mid mucjiso. xagaagii 2024 wuxuu mar kale ku hogaamiyay Argentina si ay u qaadaan Copa America kale 2 koob oo xidhiidha. hadda hadallada la sheegayo ee ah inuu ka qayb gali doono koobka adduunka ee sanadda 2026 haddii ay run noqdaan, Messi wuxuu noqon karaa ninka ugu weyn ee kubadda cagta taariikhdeeda. 2 koob ee ugu sareeya ayuu isku darsaday. aniguna waxaan ogaa inuu yahay gowdka dhabta tan iyo markii uu taabtay badhanka subscribe-ta ee kanaalkeena Maankaal. ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay dhammaadkii muuqaalkeena. hayloobin inaad ku soo biirto kanaalkeena oo aad tidhaa subscribe intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaal la mid ah. sidaas iyo maca salaama fi amaanillah.